بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم halkan waxaan isugu nimid inaanu u dirno baaq annagoo ah jaaliyadda Minnesota guddigii Khaatime State of Somalia inaanu u dirno beelaha walaalaha ah baryahan dhibaatada ku dhex dhacday magaalada Domco oo ah degmada ka tirsan dowladda deegaanka Soomaaliya ee kililka shanaad dad walaalo ah oo qaraabo ah oo kol ah oo dhibaato shaydaan ka dhex shaqaystay inaanu gaarsiino baaqayaga jaaliyadda Minnesota haddaanu nahay Khaatime State of Somalia haddana waxaan ku soo dhaweynayaa Sheekh Jaamac Mahad oo kelmad inoogu furay insha Allah program Xasan الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أولا أوصيكم ونفسي في تقوى الله عز وجل ولا ليال إله سبحانه وتعالى أيام هذا السكر أولا الإسلام لماذا نقول معيشتي ثانيا وحن الصدر دار بين عبسيدة الله سبحانه وتعالى سمان جنبه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه الله سبحانه وتعالى ولا ليال سدا ولا روبا أي شيئان أرنت عن ما أنت ماشي السجنمي وحويان إن بعض نبضات وسود شيدينه dadka walaalaheen qaraabadeenna islaamka ee dhibaatada soo kala gaadhay walaalayaal waxaan idin dardaarmaynaa in aad joojisaan colaadaas oo runtii adduun iyo aakhiraba aan wax dhibaato ah mooyaane khayr idinku jirin waxaan idin leenahay dadka islaamka walaalayaal xuquuq bay isku leeyihiin Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay innamal mu'minuuna ikhwa fa aslihuu bayna akhawaykum wardadka islaamka walaalaha deriska qaraabada ee istilayo deegaanku ka dhaxeeyo dadnimadu ka dhaxayso diintu ka dhaxeeyo magacu ka dhaxeeyo walaaltinimadu ka dhaxayso xooluhu ka dhaxeeyaan war dhibaatada iyo colaadda iska joojiya war aqligu ha shaqeeyo xilliga colaaddu waa dhamaaday Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay nabi Ibrahim alayhi salaam markii malaa'igtu u timi ay doonayeen in ay soo halaagaan qoomul Luud ayaa waxay yiraahdeen ishe qoomul Luud markii malaa'igtii oo bashar iska soo dhigay ay arkeen ayay maaragtay waxay hamiyeen inay xumaato ku sameeyaan qoomul Luud ayaa wuxuu yiri alaysa minkum rajulun rashiid warmiyaan qof aqli leh idinku jirin maxaa waxaan xumaatada u doonaysaan oo sameeynaysan ولا يروح عن الدار من نميذ الدار عقل هيدن كهر سنين ما محي بعضهم صانق نقريسا ومحي عراد الجوك تدا ومحي نعيب كإنتال آجي ميذن عقل لحي أو علمادي أو عقاشي أو أقوياهنكي أو وحجرتكي أو دك وناك كشقي شري ورهلا تشوشي عراد وناك على سعريو اللي ماذا وناك يدرس ماذا على سعريو انت أصبح عنه كجبح حياه وبالله التوفيق وياشر بدون يفساكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. وحان السلام يا ضدك وراها ودباتدو يعني كلا جاردي اسكو ديغان كا اسكو ضدك وسدا علماء اي شيغين دباتدو اي سو كلا جاردي آد بان uga daqmanayna uga xunnahay waxaanu idin soo jeedinaynaa baaq nabadeed waxaanu idin soo jeedinaynaa walaaltinimada iyo derisnimada iyo wada dhalashada inaad eegtaan iyo aakhiradiinaba mid walba inaad eegtaan oo ka shaqaysaan waxaanu idin soo jeedinaynaa oo kale inaad maqashaan dadka ehelka u saaxiibka oo yani maaragtay wax garanaya oo culimada leh oo odayaasha leh oo idinku dhex jira oo yani maalinka maanta idinku hawshaysan inaad intiina kalena maqashaan annagana aad naga qabataan dardaarankaas يعني نجمع قشان أنه أهل كيمياء
idinka dheer oo idin meesha markii horena odayaashu idin sheegeen madhasoodaan joognaa guddidii baanu nahay odayaashii baanu nahay idinagama maqna aad baanu uga xunnahay waa idiin soo gudbinaynaa waxaanu idiin rajaynaynaa inaad naga maqashaan waa idiin ducaynaynaa ilaahay inuu idinka saaro dhibta iyo yacni maaragtay dhibaatada iyo colaadda iyo balaayada oo idinku bedelo nabad iyo khayr idinku bedelo inaad annagana ilaahay naga aqbalo idinkana ilaahay idinku gargaaro ilaahay waxaan ka rajaynayaa in arrintaa iyada maanta ay idinku dambayso baaqaana aad naga maqashaan ilaahayna yacni maaragtay sidaa uu inagu wada anfaco annagana naga aqbalo ajarna naga siiyo waana mahadsantihiin haddana waxaan u gudbanayaa odayaasha kale oo dhinac fadhiya waxaana magacayga la yidhaahdaa xuseen muuse ciisaan la yidhaahdaa odayaashaan ka mid ahay ilaa iyo maalintii aanu maqalay arrimaha iyada nin nagama seexan qof yar iyo qof weyn aad baanu uga murugaysannahay baaqa kaloo aanu maqalaa waxaanu jecellahay inuu noqdaa nabad iyo yacni maaragtay heshiis fiican asalaamu calaykum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا عبد موسى ليا عبد يرى ليلا dad badan bay garanayaan u malaynayaan anaa garanaya oo dad taasa ilaahay waxaanu ka baryaynaa wixii dhintay ilaahay inuu naxariisto kuwa dhaawacaan ilaahay inuu caafiyo labadii reer ee dhulbaanta isugu dhawaabaad tihiin waan garanayaa labadii buurood ee ducmee yaryaraabaad ku dhex nooshihiin maanta haddaad halkaa ku culowdeen isku disheen waa tala kuma dhacrato waxaanu dadka meeshaa jooga oo rintii walwal badan iyo kutaallo badan ay hayso yaanu nahay oo dhulbahantee meeshaa magaceeda odayaashu sheegeen waanu ku badannahay meesha waxaanu idinka codsanaynaa walaalayaalo bilihii khayrka lahaa baa lagu jiraa waxaa lagu shabcaan baa lagu jiraa sida culimmadu sheegtay waa bilihii khayrka lahaa inaad ilaahay ka yaabtaan oo maaragtay xishootaan oo dadka maatadiinna iyo dadka waayeelka iyo dadka liita aad qaxinaysaan ka daysaan oo u naxariisataan oo annaga iyo kuwa idinla joogee maslaxadda wadaba karaamaysaan yaanu idinka baryaynaa arrintaas wixii dhacay dhace dhimasho waynu ognahay oo diidi mayno maanta intii sanadkan ina ka dhimatay waad garanaysaan iyo sanad walba wixii dhintay nimanka ka tegay bahante ee iminka cimri dheereed ka dhiganaya arrinta tan qalalaasaha marka dadka colaysiiya inay idinka faa'iidaystaan oo maaragtay waanu garanaynaa dadkii dad baa idinku jira oo dhibaatadaa wada oo cimri dheereed ka dhiganaya kuwaana waxaanu leenahay war nin la haysan karaa iyo nin gurigiisa la haysan karaa ma jirto idinku dhulbaante ka baxdee meeshaa tegaysaan idinka uunba idiin taal waa intaasaanu idin leenahay waxaanse la yaabsanahay dawladda xamar joogta iyo isimada Soomaaliyeed ee xamar ku shirsan waxay arrintaa uga hadli waayeen yaan la yaabsanahay anigu aanu la yaabsanahay maxay eeganayaan dad islaam oo isdilaya oo ehela oo Soomaaliya isimadii maanta Soomaaliyeed oo urursan waxay uga hadli waayeen annagu waa la yaabsanahay intaasaan anigu kaga baxayaa ragga kalaan u dhiibayaa siciid baa igu xigay nin la yidhaahdo oo aad iyo aad u fiican oo isaguna reer boocama ah waa siciid qabaade صاد الله هذه بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الديان النهي قرب الشوقة شعبك خاتم استيت الصوماليا وحانو كندم قرينينا أنو عمبارينينا أنو كسو هرشينا أن وحلا قادن كراهين dagaalada ka socda iyo dhiigga dadka islaamka isku daadanaya ee ka socda docmo waxa weeye ninka qabiilku uu hadeer kicinayo aakhiro cadaabta meesha ay ka gelisay aday ku jirta waxaanu leenahay dagaalada Soomaaliya ka socda oo dhan dhiigga islaamka isku daadanaya waa xaraam هلا جوجي
xilli dhiig islaam daato lama joogo kuwa dadka islaamka dhulalkooda iyo guryahooda haysta ha ka bixin kuwa ceelashooda haysta ha ka bixin kuwa guryahooda haysta ha ka bixin islaam waa walaalo almuslim akhulmuslim qofka islaam kale oo walaalo qaraabada iyo xigtaduna waaba iska sii xigaan dadka docmo ku dagaalamayo maanta adduun baa joogtaan laakiin maalin ilaahay aa hor taagan tihiin oo idinka keliya laydinla xisaabtamayo oo qofku uusan qabiilku waxba u tarayn baad tegaysaan qofkii qof dilaynaan dee ilaahay cadaab geynayo man qatala muuminan mutacamidan wajazaahu fi nnaar jahannama khaalidiina fiiha waxa weeye maalintaa qabiilka kaa soo saari doona cadaabta adaa yaqaan meesha aad ka helaysa waxa weeye dagaalada Soomaaliya ka socda oo dhan ayaanu cambaaraynaynaa haddaanu nahay shacabka ama qurba joogta Khaatime State waxaanu cambaaraynaynaa kuwa dadka dhulalkooda iyo guryahooda haysta waxaanu cambaaraynaynaa kuwa ceelashooda haysta waxaanu leenahay ilaahay ka baqa dad yahu islaam baa tiina walaalaa tiina heshiiya unitigiina Soomaaliya midnimadeeda walaalnimadiina wada noolaashiina ka shaqeeya laakiin isdilkan iyo isku dirkan maamulada isku sii diraya dadka ee lacagta isugu dhiibaya ee hubka isugu dhiibaya ilaahay ka baqeen kuma waarayaan sidan shacabkana waxaan leenahay heshiiya dadka docmo waxaan leenahay dhiig dambe iyo dil dambe yaana maqlay gacmaha isqabsada wixii dhacayna ka heshiiya wax weyn baa laga heshiiyaa marka waxaan dhacay waa dhaceen lama qaban karo laakiin waxa lagu heshiin karaa in wanaag iyo walaalnimo iyo diinta islaamka lagu heshiiyo wixina laga heshiiyo gacmaha la isqabsado.